بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa halkan faahfaahin yar ka bixiyo mashruuca SDF oo dad badan runtii suuqa soo galiyeen inuu istaagay ama muxuu la joojiyay guud ahaan mashruuca SDF marka hore hadii aan sharaxaad ka bixiyo waxa uu heshiis aynu la galay muxuu dunida ama muxuu ahaayay dadka loogu yeero deeq bixiyaasha waxaan mashruucan ku saabsanaa in muddo 5 sanadood muxuu ahaa uu hadba socdo saaka warqabtaan markii Belgiumka shirka lagu qabtay waxayna galoolisay wax la yiraahdo SSA ama Somaliland Special Arrangement oo ka dheegmay ama uu muxuu laga sameeyay marka sanduuqa horumarinta Somaliland sanduuqaasi oo ay si toos ah lacagta ugu soo shubaan wadamo dhowr ah oo Ingiriiska iyo Denmark ay ka mid yihiin Holland ay ka mid yihiin isla markaana rajayna wadamo badan oo kale inay soo galaan haddaba mashruuca sanduuqa SDF waxa uu gacanta ku haya waa 12 mashruuc oo waaweyn oo ay ka sii farcamayaan 112 mashruuc oo yaryar waxa ka mid ah jidadka ceelasha waxbarashada gobolada dalka oo dhan ka socda haddaba mashruucan SDF xilliga loo qoondeeyay waxa uu ku beegmayaa in uu dhamaantii la dhameystiro bisha 9 sanadkan waa qorsho maalintii la sameeyay ee lagu beesgareeyay oo isagu aan siyaasadii xatoon ahayn bisha 9 September ayuu muxuu ahaa qorshihiisu yahay dhammaan mashaariicda dalka socda SDF oo dhan ay ku dhameystirmaan wixii aan ku dhameystirmayna marka qaybta labaad ee SDF2 loo wareejiyo oo 2018 haddaba mashruucan socday oo muxuu ahaayay 2000 iyo muxuu ahaa ilaa 17 bisha 9 kusoo gabagabeysmayay waxa dib loo riixay oo kaliya mashaariicda la isleeyahay kuma laguma gaarsiin karayo ilaa bisha 9 waxa kale oo jiray isbedel ku yimi lacagihii dawladda Ingiriiska waa ka horeysan inay ka baxday wadanka Yurub wadamada Yurub ay ka baxday marka lacagtii ay nasiin jirtay oo geniga Ingiriiska ahaa hoos buu dhacay sarifka ilaa $2 milyan ba ayaa muxuu ahaa hoos u dhacay dalka Denmark oo kaliya ayaa isagu muxuu ahaa runtii sheegay in maadaama doorashada dib u dhacday inay waxooga yar hakinayaan $3 milyan laakiin dhammaan mashaariicda dalka sida lagu talagalay u socdaan waxaana maadaama lacagahaasi ay hoos u dhaceen gaar ahaan lacagta Ingiriiska kale iyo mashaariicdii aan laga gaarsiin karin ilaa bisha 9 ka hor ayuu maan dib u riixnay kuwaas oo si automatic 2018 bisha 3 soconaya oo u baahanay mar dambe in dib loo fadhiisto ama la soo ogolaado way wadagtiin muxuu ahaay processka ama jidka uu maro marka la doonayo mashruuc in la hirgeliyo tusaale ahaan haddaan soo qaato mashruucan ku saabsan biyaha ceelaf weyn oo kale oo aad ogtihiin muxuu ahaa in biyaha laga soo jiidiyay ilaa 30 kilomitir waxa weeyaan colaadihii ka dhacay waageedeen marka muxuu ahaay xilligii loogu talagalay bisha 9 kuma dhamaanayo laakiin marka bisha la gaaro 3 ee 2018 ayuu si automatic u soconaya inta ka horeysan wixii la gaarsiin karay bisha 9 ay soconayaan marka mashaariicdu waa caynka wadamadii muxuu ahaay saaxiibkan Siman saaxiib u nahay shirkii markii dhaweeto runtii la soo celceliyay oo bisha May 12 ka dhacay Soomaaliya sidii wasiirka arrimaha dibadda tilmaamay waxa weeyaan waa shir kiishanaad waxaan laga hadlayaa guud ahaan sidii muxuu ahaay adduunku uu 4 sano soo socda xagga horumarinta heshiis ay wada gali lahaayeen muxuu ahaay runtii wadanka Soomaaliya iyo dunidu inagu Soomaaliya ma sidii horeba loo tilmaamay kan laftiisana hadii aan wax laga bedeli lahayn kullaba kama inaan qayb galeen Ingiriiskuna waa ogsoon yihiin duniduna waa ka warqabtaa mowqifkeena marka wax alla wax inaga uu nagu leeyahay hadii oo inaga xidhan ma jiraan